كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. qisadan waxaa laga soo guuriyey kitaabka azamanu qadiim. waxaan qisadan usoo gudbinayaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaheena. waxaana rajaynayaa in qisadan ay ahaato mid aad ku cibro qaadataan, naftiinana xisaabisaan inta aan Allah subxaanahu wa tacaala idin xisaabin. qisadan oo ah mid dhab ah waxay ku bilaabatay sidatan. waxay bilowday walaashay wejigeedu inuu bedelmo, jirkeeduna daciifo, laakiin siday mar walba ahayd waxay akhrin jirtay qur-aanka. haddii aad raadisid waxaad ka helaysaa meesha ay ku tukato, iyadoo gacmaheedu kor u taagaysa, Allah baryaysa. sidaa ayay ahayd, mana dhaafi jirin, mana daali jirin. aniguse waxaan aad ugu dadaali jiray akhrinta buugaagta, sheekooyinka iyo kuwa fanaaniinta. waxaan daawan jiray TV inta badan, mana u gudan jirin waajibka laygu leeyahay si dhammaystiran. salaadana ma ahayn mid u tukata si toos ah. kadib markii aan xiray fiidiyowgii aan ka daawanayay filimaanta kala duwan muddo 3 saac oo isku xigta, ayaa aadaankii salaada subax laga aadamay masaajid noo dhow. waxaan aaday sariirtaydii si aan u seexdo. waxaase ii yeertay walaashay iyadoo fadhida meeshii ay ku tukanaysay. waxay tiri iyadoo si qabow iila hadlaysa, ha seexan adigoo aan salaada subax tukan. anigoo dhibsanaya ayaan iri, waxaa ka hartay saacad, aadaankii aad maqashayna waa kii hore. sidaa ayay walaashay ahayd ilaa uu ku dhacay xanuun aan caadi ahayn, ayna noqotay mid dul taala furaashkeeda. habeenada ka mid ah ayay ii yeertay. waxay tiri, kaalay Hana. maanan awoodin inaan diido, anigoo og wanaageeda iyo runteeda. cod ay cabsi ku jirto ayay igu dul akhriday aayaadkii qur-aanka ahaa. naf walba waxay dhadhaminaysaa geerida, waxaana loo oofinayaa maalinta qiyaame camalkii ay la timid. way aamustay. waxyar ka bacdi ayay i tiri, miyaadan rumaysnayn geerida? waxaan iri, haa, waan rumaysanahay. waxay i tiri, miyaadan ogeyn in lagaa xisaabin doono mid kasta oo yar ama weyn oo aad samayso? waxaan iri, haa, balse Allah subxaanahu wa tacaala waa kan dunuubta dhaafa, naxariistana. noloshuna waa mid dheer. waa kelmad qof kasta oo aqli yar uu ku hadlo, waayo waxay iloobeyn in Allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale uu cadaabkiisu daran yahay. waxay igu jawaabtay, walaashaydiyey, miyaadan ka baqayn geerida mideeda kadiska ah? fiiri walaasha Hinda oo ahayd mid ka yar, waxay ku dhimatay shil baabuur. sidoo kale miyaadan ogeyn heblaayo iyo heblaayo, ilaa ay tirisay gabdho badan oo aan aqaan oo hore u dhintay. iyadoo hadalkii sii wada ayay tiri, mawdku ma yaqaan cimri, mana lahan qiyaas. waxyar ka bacdi iyadoo qol mugdi ah ku dhex jirta ayaan ku iri, sanadkan miyaadan noo raacin fasaxa? waxaan rabnaa inaan magaalo kale aadno. sikadiisa ayay igu jawaabtay, waxayna tiri, laga yaaba inaan sanadkan u safri doono safar fog. walaal Hana, ilaah ayay noloshu gacantiisa ku jirtaa. waxayna bilowday inay ooydo. waxaa hadda ka hor walaashay lagu sheegay inuu hayo cudur xun oo aan laga badbaadi karin, laakiin iyada waa laga qariyay. markii ooyday ayaan u maleeyay in loo sheegaa xanuunka haya. waxaan ku iri, maxaa la ooyeysaa? ma xanuun baa hadda ku haya? waxay igu jawaabtay, ma waxaad u malaynaysaa inaan cudurka ahay la ooyayo? waxaa laga yaabaa inaan ka cimri dheeraado dadka ugu caafimaadka badan. adiguse ilaa goormaad noolaanaysaa? inkasta oo aad noolaatana waxaa kaa dambeeya geeri. gacanta ayay soo qabatay, waxayna tiri, wax farqi ah inooma dhexeeya kulligeen. waan guuraynaa, waxaan ka tegaynaa dunyadan, ama janno ama naar. miyaadan maqal hadalkii Allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku yiri, qofkii ka badbaada naar jannadana la geliyo ayaa ah mid guulaystay.
waan ka dhaqaaqay iyadoo ilaah ha ilaawin salaada, ilaahay ha ku hanuuniye. subaxdii 8aad ayaa anigoo hurdo laygu soo garaacay albaabka. mana ahayn waqti la kicin jiray. waxaan maqlay oohin. waxaan isiri, yaa rab, wartalow maxaa dhacay? xaalkii walaashay nuur ayaa sii xumaaday. aabahay ayaa u qaaday hosbitaalka. muddo dheer kadib, markii aan sugay akhbaartii nuuro, saacaduna ay gaartay 1:00 duhurnimo, ayaa aabahay telefoon soo diray. wuxuu noo sheegay inaan soo booqan karno. hooyadii ayaa waxay ii sheegtay in hadalka aabe ahaa mid welwel iyo walbahaar ka muuqdo. shukadii ayaan qaatay. waxaan u yeernay darawalkii gaariga. si degdeg ah ayaan u kornay gaariga. hosbitaalka oo aad nooga fogaa wuxuu ila noqday mid dhow. hooyaday ayaa dhinacayga fadhiiday iyadoo leh, waxay ahayd gabar saalixad ah oo i adeecda. weligay ma arag iyadoo waqtigeeda dayaxda. waxaan galnay albaabkii hosbitaalka. waxaan sii dhex marnay dadkii hosbitaalka jiifay. dhagahayga waxaa ku soo dhacayay iyadoo la leeyahay, kan halka jiif waa indhabeelay, kana shil ayuu galay, kana waa gubtay, halka mid ayaa dhintay oo laga qaaday. dadka meesha jiifayna way ildarnaayeen. waxaan kala garan waayey inay yihiin dad aakhiro ama dad adduun. jaranjar ayaan si degdeg ah ku furnay. waxaana loo sheegay in walaashii la dhigay qaybta dadka khatarta ah la dhigo. waxaana soo kaxeeyay gabar ka mid ah gabdhaha kalkaalisada. waxay noo sheegtay inaan loo ogolayn qof ka badan inuu u galo. waxa markii hore u gashay hooyaday. 2 daqiiqo ka bacdi waxay ka soo baxday iyadoo aan awoodin inay qariso oohinteeda. aniga ayaa u galay. waxayna isiiyeen 2 daqiiqo iyagoo ilaah ha ku badin hadalka. waxaan ku idhi, sidee tahay walaal nuuro? waxay tiri, waan ladanahay alxamdulilaah. waxaan ku fadhiyay sariirteeda. waxaan taabtay lugteeda. lugtii ayay iga fogaysay. waxaan ku idhi, waan ka xumahay haddii aan ku ciriiriyey. waxay tiri, maya, imaadan ciriirin. laakiin waxaan ku fakeray hadalkii eebbe yiri oo ahaa, waltafatu saaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin masaaq. markay isku marmaan labada lugood sakaraadka awgiis, maalinta ilaa xaggiisa la aadiyo. waxay tiri, walaalhana iisoo ducee. waxaa laga yaabaa inaan qaabilo mar dhow maalmihii ugu horreeyay ee aakhiro. safarkayguna waa mid fog, sahidayduna waa yar tahay. waxaa iga soo daadatay ilmo markaan maqlay. kadib waan ooyey, mana garanayn meel aan joogo. maalintaa ka bacdi waxaa indhahayga laasimtay ilmo. wuxuu ahaa aabbahay mid ii baqa in ka badan nuuro, waayo igama uusan baran inaan sidaa u ooyo. kadib markii qoraxdu dhacday, waxaa la soo sheegay in nuuro dhimatay. ma kala sooci karin qof yimid iyo waxa la yidhi, yaa allah, xaggee anigu joogaa? maxaase dhacay? waxaan kari waayey oohintii. markaa kadib aabbahay ayaa gacantay qabtay. waan baxnay si aan u sagootino. markii aan eegay iyadoo sariirta saaran oo meyd ah, waxaan xusuustay aayaddii akhriday oo macneedu ahaa, marka ay luguhu isku marmaan sakaraadka awgii, alla xaggiisana loo kaxeeyo. ka bacdi waxaan xusuustay inay ahayd mid iigu ducaysa hanuunka oo jecel inuu allah subxaana wa tacaala i hanuuniyo. waxay ahayd mid habeeno badan ooyday iyadoo iga sheekaynaysa geerida iyo xisaabta aakhiro. ilaahow i gargaar. markii aan guriga imidna waxaan arkay sujaayadii ay had iyo goor ku tukan jirtay iyo kitaabkii ay akhrin jirtay. waxaa kale oo aan xusuustay inay caawa tahay habeenkii ugu horreysay oo ay u hoyato qabriga. markaas ayaan ooyey. waxaan ka shallaayay ayaamihii iga dayacmay. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa inuu ii naxariisto, iina dembi dhaafo. sikadiisa ayaa naftayda waxaan u weydiiyey,
haddii aan ahaan lahaa anigu qofka dhimatay xaggee la igeyn lahaa, muxuuse arrinkayga noqon lahaa? waa su-aal looga baahan yahay inay gabar kasta nafteeda weydiiso. waxaa kale ood naftaada weydiisaa, haddii gabadhii habeen iyo maalin tukanaysay oo gudanaysay waajibaadka lagu leeyahay ay tiri markii naftu ka baxaysay, safarkaygu waa fog yahay, sahidayduna waa yar tahay, adigoo xaggay joogtaa? gaar ahaan gabdhahan waqtigooda ka faa'iidaysan oo aan xisaabin naftooda, xaggee buu noqonayaa masiirkooda iyo meesha allah subxaanahu watacaala uu geynayaa markay geeriyoodaan ka baxday? waxay tidhi Hana, maalintii ay walaashii dhimatay waxaan bilaabay inaan guto waajibaadka laygu leeyahay. haddii aan maqlo aadaanka salaada subax waan kacaa. waxaan dareemay in walaashay ay ku jirtay raaxo iyo deganaansho aniga iga maqnayd markii aan daawashada filmaanta ku daahi jiray. walaalayaal, haddii aad waabarisataan ha sugiina galab, hadaad galbaysataana ha sugiina subax. wabilaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.